بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم kusoo dhawaada casharadeenii taxanaha ee barashada maktaba ashaamila waxaynu ka soo baxanay barashada kibcalka la yiraahdo casharkii gurfatu taxakum waxaanaynu ugu xigi doontaa shaashatul muallifiin casharkana waa casharkii 12aad oo ka mid ah barashada maktaba ashaamila haddii aynu ku dhufanto shaashatul muallifiin waa sidii gurfatu taxakum uma baahna in kitaab ii furan yahay waxay noo soo baxaya waajahada noocana ayaduna dhowr qaybood ayay ka kooban tahay qayb halkaan midigta ah iyo qayb sare iyo qayb hoose ayay ka kooban tahay qaybtan midigta ayaynu ku hormarinaa sharaxaadeeda waxaad aragtaan inay ku qoran tahay abjadiyan wa alif ayay ku beegan tahay haddii aan dhiraahno wafiyaadna wuxuu ku tartiibinayaa sidii taariikhdooda u kala horeysay midba midka kale intii ka horeysay sida iftiraadigana waa abjadiyan oo alifka ayay ku tartiibsan tahay xaggan hoose waxay ku leedahay ayqoonaad horma ah ayqoonka koobaad waxaad ku sameynaysaa intii aan horey kusoo baranay oo kale muallif magaciisa haddii aad rabtid inaad ku dartid baa halkan ku qori doontaa halkaana waxaad ka siin doontaa idaafa ama haddii aad rabtid muallif magaciisa inaad bedeshid magacaad ku bedelaysa ayaa meesha ku qoraysaa halkaana waxaad ka siinaysaa bedelka aad dhahaysaa haddii aad rabtid inaad baartaan muallifna baxthi ayaad dhihi doontaa markaad muallifka magaciisa qorto intaani waa dhinacan midigta ah ama haddii aan qaybta sareetan niraahno xagga kale waxaad ku arkaysaa muallifka ku dooran magaciisa iyo taariikhdii uu dhintay halkaani haddii ma garanaysaa kutubtaas ay tahay kutub laga keenay maktaba al-elektroniya sida haddaba ujeedaan waxay noqonaysaa zar xifdigii baaba ayuu noqonaya ma kuu shaqaynaya inaad kitaabkaasi mar dambe aad ku soo dadhamaa magaciisa aad haddaba ku biiriso oo aad markaas ku darto shaashatul muallifiin mahan sidoo kaleeto khaanadan waxaa kaaga muuqanaya muallifka tarjamaadiisii ayaa ku muuqanaysa oo markaad muallifka doorato halkan tarjamadiisa ayaa kaaga muuqan doonta waarata hadda batankii waa active waa laakiin haday wuxuu ahaa baahid halkan muallifka waxaa kaaga muuqanaysa tarjamadiisii halkan haddii uu jiro kitaab ku xiran magacan muallifka ayaa ku muuqanaya haddii kitaab ku xiran yahayna kitaabka bitaaqadiisii ayaa halkan kaaga muuqanaysa tusaale waxaynu soo qaban doonaa kitaab muallif kitaabkiisa ku xiran yahay ayaynu baaraynaa tusaale saciid أحمد فارح markaynu baxthi niraahno magaca noo soo qabto waxaan aragnaa in kitaab uu ku xiran yahay kitaabkii marka halkan waxaa nooga soo baxaya bitaaqadiisii iyo qismiga uu ku jiro magaciisa halkaana canil kitaab haddii kitaabka laga qoray tanna waa tasafuxo kitaabka awalkiisa iyo barnaamijka ayuu kugu soo bandhigi doonaa dabcan taariikhul wafaadkan ma jirayo sidaas ayayna noqon doontaa oo barnaamijkan intaas ayaynu kaga gudbaynaa isla casharkan waxaynu raacin doonaa casharo kaleeto oo haddii ilaahay ku ran yahay ka agdhow waxaa ka mid ah shaashatul muallifiin waan sharaxnay naskhu nas kitaab markuu inoo furan yahay oo tusaale kitaabka hadeertaan oo kale kitaabkaasoo tusaalaha ku qaadanayna maadaama aan isaga kusoo darnay oo haddii ilaahay ku ranayso kutubtii hore ku jirtay uusan ka mid ahayn mar walba asagaan tusaalaha ku qaadanayna kitaabkan sidaan igu furan haddii aan ku dhufto nasakh waxaa ii koobi karaysmaya naska safxadan oo dhan wuxuuna i raacin doonaa kitaabka magaciisa iyo safxada aan wax ka koobiyeyni tusaale haddaynu safxooyin dambeeto tagno oo safxad dambeeta aan nidhaahno koobi ka nidhaahno waxaad arkaysaa inay inoo soo bixi doonto safxadii aan wax ka koobiyeynay tirsigeeda inay soo raaci doonto waayahay halkan ayaan dhigi doonaa wixii aan soo koobiyey baasti ku dhahi doonaa mise koobigii baana iisoo kicinba koobigii ayaan ku dhuftay markaan koobiga ku dhuftana waxaan aadayaa safxadii wordka baastina waan dhihi doonaa markaan baasti iraahdo waxaad aragtaa kitaabka asayr alxadiid fi tawdiixi 100 alxadiid inay ku taalo mujalladka koobaad safxada 10aad naskii meesha ku yaalay oo dhanna iisoo koobi kareeyay sidaas ayay noqonaysaa markaa ama haddii aan qayb ka mid intaan hayleed saaro aan qaybtaas koobi iraahdo koobigaas wuxuu ii qaadi doonaa qaybtaas aan hayleed ka saaray oo kaliya calaamatul marjiciya waxay u taalaa mararka qaarkood waxaa dhici kara adigoo 10 muraajacaynaya daalacanaya kitaabka meel dhex ku mara in salaadii lagu aqimo markaad u baahato inaad soo tukato ka bacdina mudaaracadaada meesha aad ka wadato laakiin kombiyuutarka inta inuu daarnaado dhib ayay kugu tahay waxaad samayn karaysaa marka calaamatul marjiciya ayaad ku dhufanaysaa
علامة المرجعية مركا كل فترة مقعي أيضا بحين دونتا هدي لا يكون هي أدربتي وكلاته إن 10 كان هذا وتكوكرتين أم مثلا وحن له دونا تصال وبعد الصلاة مركانا موافقة يديه كريسة هذا واسك كنسليسا مكتبتنا واسك حريسا هذا مركز 10 كوتي ماده وهدي لا يكون هي هذا كسر لعبته أيضا حتكون فندون تعمل كم مكتبة كعيسى علامة المرجعية طبعا إنه حكون فندون بعد الصلاة صفحة دي أدمريسة لفتر كيدي أيانا كوفر ميسا 10 كان أنت صين كسر جابننا كسر هذا مرة بعد 10 برشة مكتبة الشاملة 10 ردي تحنها يتكبرني سنة هلكا 10 كان وهو 10 كيلو بيتوناد وحنا إذن لسعود سيني يعني سعيد أحمد فارح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته